Assalaamu calaykum. Kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan. Suudaan. Dalka Suudaan. Sidaan la wada soconay maalmihii aan soo dhaafnay, dalkaas waxaa ka dhacay afgembi military oo la mid ahaa kuwii hore uga dhici jiray. Dalkan ku caanka afgembiyada military ayaa u ekaa 2019 mid ka soo gurguranaya ama ka soo baxaya godka madow ee militariga, iyadoo markaasi ay jireen isku dayo afgembiyo military oo aad u badan oo gaadhaya ilaa 8 oo ay ka hirgaleen 3 kuwaas oo xilliyo kala duwan dhacay oo aan halkan ku sheegi doono. Waqti xaadirkan dalka Suudaan ee 2021 waxaa ka socda mudaharaadyo badan kuwaas oo lagu dalbanayo in uu militarigu xilka ka dego oo markaasi rayid lagu wareejiyo, arrinkaasi oo soo bilowday 2019. Cumar al-Bashir markii uu xilka ka degay ama markaasi laga faramaroojiyay mudaharaadadii waaweynaa ee 2019 kadib waxaa dhacay gole loo dhan yahay oo ka koobnaa xubno rayid ah iyo xubno ka socda kuwa militariga si dalka ay horey ugu dhaqaajiyaan, oo ra'iisul wasaarena looga dhigay Cabdalla Xanduug oo ahaa ka imika haatan ku jira xabsi guriga marka ay militarigu dhigeen. Waxay soo socotaba xukuumaddaasi way dhaqaaqi weyday ama golaha isbahaysiga ah ee ka kooban xubnaha rayidka iyo kuwa militariga. Waxay soo gurgurataba xaaladda Suudaan hadba waxay maraysay heer kala duwan, iyadoo heerka sixirka dalka gudihiisa ee maciishadu cirkas ku shareertay. Waxaa jirta dhibaatooyin fara badan oo dalkan sii horinaya dhibaatadiisa oo ay ka mid yihiin isku dhacyada qowmiyadaha iyo qabaa'ilka, iyo sidoo kale qabaa'il ka mid ah qabaa'ilada Suudaan oo xidhay dekedii ugu weyneyd dalkaas oo aan la geli karin. Xaaladda dalku aad u murugsan, waxaa lagu qancin waayey Cabdalla Xanduug inuu xilka wareejiyo sida uu sheegay generaalka imika la wareegay talada dalkaas ee laalay gebi ahaanba dastuurkii inta badan dalkaas iyo sidoo kale xubnihii wasiirada iyo dhammaanba xukuumaddii hore isagoo meesha ka saaray. Iyadoo xaaladda Suudaan sidaa tahay, haddii aan taariikh ahaan eegno militariga dalka Suudaan aad ayuu isugu dayaa mar walba inuu xilka u hanto, iyadoo inta badan dalkaas gacanta ku hayay military oo ay yar tahay inta laga xusi karo inuu rayid dadka rayidka ay maamulayeen dalkaas. Haddii aan taariikhda eegno, Ibraahim Xamuud 1958 ayuu ku qabsaday afgembi military oo hirgalay, halka Jacfar Numeyri 1969 isna xukunka uu afgembi military ku qabsaday. Cumar al-Bashir 1989 uu afgembi military ku qabsaday, waana hogaamiyey waqtiga dheeraa ee dalka Suudaan isagoo ku joogay talada afgembi military muddo ka badan 30 sannadood. Ugu dambeynna waa la afgembiyey isagoo xilkiina laga qaaday, iyadoo dadka reer Suudaan ay intaas u barooranayaan sidii ay u heli lahaayeen xuquuq dhan oo markaasi iyaga dhexdooda ah oo uu militarigu bannaanka ka aaday. Laakiin inta badan waxaad moodaa in wadamada shisheeye kuwa Carabeed ay inta badan ka caawiyaan generaalada in ay xilka la wareegaan marka uu midi dheeraysto markaasi talada uu dalkaas ka hayo. Xaaladda Suudaan ee waqti xaadirkan ayaa ah mid aad looga dayrinayo dhinacyo kala duwan. Dhinaca dhaqaalaha, saameynta bulshada, tan iyo markii ay afgembigan uu haatan hirgalay kay afraad oo haatan ka dhacay, ayaa waxaa jira dadyow dhigaya mudaharaadyo badan oo ay ka mid tahay caasimadda Khartoum. Waddooyinka waaweyn ee magaalada ayaa waxaa lagu arkayaa dad kumanaan kun oo qof ah oo iskugu soo baxay si ay uga mudaharaadaan oo ay uga dhiidhiyaan afgembiga militariga, iyagoo ku dhawaaqaya hal u dhigyo u ah in ayna dooneynin militariga. Waxaa dhintay ugu yaraan 10 qof, 100 iyo dheeraadna way ku dhaawacmeen, waana durtaba dhiig fara badan oo ka daatay dalka Suudaan. Dadka Suudaan sida muuqata way kasoo horjeedaan in ay mar dambe ku noqdaan godka madow ee militariga, laakiin waxay u eg tahay in markaasi ay ka dhiga adeegayaan generaaladu oo sidii xilka looga faramaroojin lahaa ay tahay mid weli u baahan dhabar adeeg badan, maadaama shacabka Suudaan ayna daalin mana nastaan oo ay mar walba ku jiraan halgan. Tan iyo intii xorriyadda u qaatay 8 afgembi ee la isku dayay 3 ayaa ka hirgalay, kana waa kii afraad haddii uu hirgalo. Sida uu generaal Cabdifataax al-Burhaani uu sheegay, 2023 waxay qaban doonaan ama uu sida uu ku doodayo doorasho guud oo dalka oo dhan ah, sidana ay rayid ugu wareejin doonaan, isagoo ku handacoonaya in xukuumaddii
rayidka iyo militariga ka koobnayd ee isku dhafka ahayd ay dhaqaajin weyday gebi ahaanba dalkaas. Inta badan dalalka caalamka kuwa ay kelitayaashu xukumaan ayaa inta badan waxa uu la kulmaa dhibaatooyin iyo hagardaamo waaweyn oo ay ka mid yihiin afgembiyada militari ee joogtada ah, iyadoo dadka shacabkiina inta badan jeclayn in gacan bir ah lagu xukumo maadaama ay wax walba isbedeleen caalamkan oo inta badanna dalalka adduunka ay ku tallaabsadeen waxa loo yaqaano dimuqraadiyadda, taas oo aad moodid inay wadamo fara badani ku caanamaaleen. Laakiin dalal fara badan ayaa weli u helan marka 30 sannadood dal gacan bir ah lagu hayay waa in ay dadku cadho la butaacaan oo ay sababto xataa inuu dalku burburo oo uu dhaco dagaal sokeeye iyo waxyaabaha la halmaala. Inta badanna dalalka burburkoodu waxa uu ka yimaadaa dhinaca xukunka oo ay mas-uuliyiinta xukumaya waqtiga dheeraystaan ugu dambeynna la iskharbado. Xaaladda Suudaan waa mid aad u murugsan marka la eego nolosha dalkaas iyo sidoo kale isku dhacyada qowmiyadaha, waxaana suurtagal ah mar walba inay xataa dhici karaan dagaal sokeeye oo buuxa. Balse dalka Suudaan waxaa jira wadamo fara badan oo caalamka oo baaqya u diraya in ay joojiyaan waxa ay wadaan militarigu oo ay dadka rayidka ku wareejiyaan, halka qaramada midoobeyna ay ka yeelanayso shir markaasi albaabadu ay u xidhan yihiin xaaladda guud ee dalka Suudaan. Waxaana laga warsugi doonaa waxyaabaha inta badan ay caalamku soo jeediyaan, iyadoo inta badanna waddanka Mareykanku uu joojiyey lacag uu ku kabi jiray dowladda Suudaan iyo sidoo kale dalal fara badan, maadaama haddii dhaqaalaha Suudaan lagu kabo la joojiyo aynan generaalada talada hayaay ay u sii adkaysan doonin oo ay sidaas ku dhiibi doonaan. Waan eegi doonaa xaaladda guud ee dalka Suudaan inagoo dhinacyo kala duwana ka fiirinayna halka ay xaaladda Suudaan ku dambeyso. Ma sida dalka Masar ay noqon doontaa oo dib ayaa generaalkani ay ugu hirgeli doontaa? Sidee ay noqon doontaa dadka reer Suudaan ee aan daalin ana nasan? Sidee ayay ka yeeli doonaan xaaladdan murugsan ee dalkooda ka soo cusboonaatay mar kale, iyagoo ku dhawaaqaya waxaa noogu filan 30 sannadood oo uu haystay Cumar al-Bashiir oo dalkaasi maamulayay, godkaana dib ugu laaban mayno ayay ku dhawaaqayaan mudaharaadada waaweyn ee waqti xaadirkan ka socda magaalada Khartoum ee caasimadda u ah waddankaasi Suudaan. Intaan mawduuca mid lamid ah dib ugu kulmi doono sidaas iyo nooli kulantay. What the military is doing is a betrayal to all citizens on all fronts. It is the duty of all civilians to move and to block all roads outside to prevent any military force to move. Right now, all of us must unite to show the truth. The return of the old regime is impossible, no matter what the excuses or the justifications. The return is impossible. This is the first statement.